ninka wasiirka noqday waxaan ku uri walaal hebelow bal arintii dagaalada ka waran miyaad iska dayseen xagaan ku daynay buu uri tamaruun baan weynay maalintan tamar helo ku afu hargeysaasaan ku afuufaynaa buu igu ninka labaadna madaxtooyada Somaliland wasiir soo maray oo wasiirka madaxtooyada ka noqday ayaa wuxuu ugu yiri waxaan u noqday la taliye markaasaan ku uri oo sheekh soodisa kalena aaminsanaa in lagu afuufana soodiga aaminsanaa markaasuu ugu yiri war sheekh waxaan maad fahmine ama libaax baa la noqdaa ama harag libaax baa la xidhaa marka haddaad imika madaxtooyadiiba gashay oo gundhada jartay miyaanad wixii iska xagaan iskaga daayay buuri wallaahi maalintan oo haata helo aan ku afuufaya buuri kaadh baanu sitaa la taliyaha wasiirka madaxtooyada ee Somaliland anigu Sheekh Cali Warsame oo amiirkii jamaacada ahaa ayaan 1991 magaalada Berbera ku weydiiyay anigoo daayar markaan arkay muaskaraadkii la sameeyay xarumihii tababarka military oo itixaadku ay ka sameeyeen Boorame Burca ka sameeyeen saasun daw raac ilaa xadka Kenya laga galayo markii dambana Ethiopia waxaan ku uri sheekhiyaal la dagaalamaya ilaa imkaan aniga laftiisa weydiiyaa aniga aqoontaaduna waa gaabnay daadaduna way yareeyeen tolo bariga maxaa su'aasha ka keenay sheekhu wuxuu igu jawaabay cidna la dagaalami maayo waa la diyaar garoobay ninka markaa maanta yiraahda jamaaca dacawiya aanu nahay dawlad dooni mayno dagaal iyo waxa uma jeedno wala midkood inuu dadka been u sheegayo oo arintaasi ay siyaasad ka tahay mowqif siyaasi ay ka tahay iyo inuu isaga aragtidiisa isaga u gaarka oo ka warramay iska ilaaliya arinta noocaas ah leeyahay ku khaldi ragga difaaca waxay yiraahdaan dagaaladii dhacay looma dhamayn ragga qaar kood baa go'aanka iska gaaray wax macno taasi haba yaraatay ay sameynaysaa ma jirto manhajkiinu ma aha in la dagaalamo goorta la dagaalamaya berri bay noqon kartaa saad dambe noqon kartaa saakuumay noqon kartaa sanadka dambe noqon kartaa laakiin manhajkiinu horta ma aha in la dagaalamo xasan daahir sidaas uu yiri kumareedan beenin shaykhda qaar kood oo markaa madaxda sare kamid aha oo aan weydiinay waxay yiraahdeen qaraarko qoran baa naloo keenay saasa ku qorayd in la jihaado inay jamaacadu go'aansatay halka laga jihaadayana waa dadkan Soomaalida ee muslimiinta dhexdooda xisbigan in loo sameeyay in kursi lagu gaaray ilaa waa itixaadkii oo magacii laga bedelay sida iyaguba ay qireen xad daliil ah anu waxaan daliishanay ragga madaxda hadal ay ka waramayaan mawaaqiftooda ma hadalkan ka soo naqilaya wixii jamaacadka loo sameeyay wixii lagu heshiiyay bay ka waramayaan marka way ka duwantay qof aragtidiisa ku hadlo mas'ala ka hadlay oo nin madaxa wixii jamaacadiisu ay u sameysneedna ka hadlaya haday leeyihiin de waa beentii oo wax jira maaha deena ku beeniyaan baa ninka koowadan ka soo raraya waa Sheekh Axmed Abdi Samad رئيس المجلس التنفيذي للاعتصام أيوه أها مضح قولها فلنتا اعتصامك وحرصوا كور رميا حركات كان يردي ميديا سياسي منهج كودي وددود اعتصام كنا وكم دي هاي كانت جوابي سؤال ويدي وعط حلقوا يري وحالين كل شيء قاعدين كرسي دوني سنة arinta ka war wuxuu taas waa xaqiiqo inaan kursiga madaxtinimo u soconaa waa xaqiiqo buuri waxaan kugu iri itixaadka qura ma aha jamaacadka islaamiga ah ee caalamul islaami laga sameeyay anigu ka hadlimayo tabliiq iyo dad sida u dhaqma iyo jamaacadkan gadaal ka yimi ee waqti dambe yimi ee magaca salafiyada qaatay ee kutubaan akhriyayna حكم كان حكامته لو داي هذا الكاوست كحريق يعني الدعوه السلفيه اشاره وحانو كو ايدينيا وان من اسك خيرو كو غابسداي كتب بانو دغينا حكم كان نينكا هاي دي وانا سيده aynu leenahay bataas waxa leen mar haduu muslim yahay in xukunka lagu qabsado ama banaana nabigaana saxaabada ballan kaga qaadi jiray
وأن لا ننازع الأمر أهله talada cidda haysa inaanan ku qabsan marka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xadiidka la midka ah iyo dacwa salafiya ka duulaysa muxuu qiray iyagu inay saa ka duwan yihiin haddaba sooma soo ragmaanta ma laha anagu xukum dooni mayno jamaaca dacawiya aanu nahay markii indhaha dadku ay ku soo jeesteen bay siraan iska yara jeedi markaas intaa leeyihin laakiin ninkii xogogaalka ahaa ee madaxda ahaa waa kaas marka laga reebo tabliiqiya dadka sidaa u dhaqma iyo jamaacadka magaca salafiye xambaarsan ee gadaal ka yimi ee la kutub baanu dhigaynaa xukunkana xaakimka haystaha loo daayo marka laga reebo buu yidhi waxa jamaacadka loo sameeyey in la sameeyo dowlad shareecada dabaqada dadka ku xukunta caalamkana kula dhaqanta hadday aaminsan yihiin tan joogtaa inay tahay dowlad islaama waxa ka dhinaadaan waa ka khaldanaadaan be ma yidhaahdeen waxa xisbiga loo sameeyey in dowlad islaama lagu keeno markaasaa weliba wuxuu leeyahy dadka qaarkood hadday khaatiyaan istaageen macnaa dowlad raadintii bay ku daaleen mar dagaal bay galeen mar doorashay galeen way ku faakaceen marka hadday ragga qaarkood khaatiyaan istaageen oo camalkan ay ka daaleen dee hum wa sha'nuhum iyagay taasi u taallaa laakiin ujeeddada xisbiga loo sameeyey waa in dowlad islaama lagu keeno dee kuwan jirana meesha laga saaro ila dowlad dusha laga saari maayeen waa inay tii hore meesha ka baxdo soo maa waa kaas weliba hadalkani wakti fog maaha hadday odhan lahaayeen berye hore oo sidaanu aaminsanaan baa jiri jirtay oo waanu arrinta noocaasiya ka noqonnay oo khaladka waanu saxnay dee waxbay noqon lahayd laakiin hadal waxaa dee cusub weeye oo waraysi beri dhaweyd lala yeeshay buu sidaa ku yidhi waay xasan daahir aweys ilaa imika wuxuu sheeganaya inuu ictisaam yahay iyaguna kumay beenin waxaanu ka gaadhay ictisaamka naa'ib ra'iis amiir ku-xigeen ayuu ka noqday weliba muddo dhowr iyo 10 sanadooda ayuu xilka noocaas ahayay sida ciddii xogaalka u ahayd ay sheegeen wuxuu ka warramayaa aragtidiisa ma ahee wixii ay isku waafaqeen ay ku heshiiyeen buu ka warramayaa wuxuu leeyahay labadii jamaaco markii la mideeyey waa waxdadii aljamaaca alislaamiya itixaad u dhashay ayaanu kulan baanu qabsannay waxaanu nidhi war maxaynu samaynaa ila waxaynu doonaynay dacwad qura maaha dowla islaamiya aynu doonaynay axzaabtana waxaan u samaynay buu leeyahay sidii dowla islaamiya waddanka looga samayn lahaa laba waduun baana jiro dowlad lagu gaari karo marka waxaan isweydiinay labadaa waddo teebaynu maraa waanu fikirnay waanu wada hadalnay buxuuth baanu samaynay buxuuth kalea la akhriyey buxuuth cilmiya baa la keenay labadii dariiqo ee xukunka ama kursiga lagu gaari lahaa baanu qiimaynay waxaa kulamadaa ka qayb gelay buu leeyahay rag dabadda tegey sida baakistaan iyo meelo kaleba maxamuud ciise sheekh ledhaa buu ka xusay waxaanu nidhi ma waxaynu maraa waddada baarlamaanka doorashadaynu ka qayb gallaa baarlamaanka inu aqlabiyad ku yeelannaa halkaasaynu kursiga sarena u maraa si aynu dowla islaamiya u dhalino weli waxay ku beegantay buuhi wakti siyaad barree lala taliyey oo lagu yidhi anigo arrimaha fududee oo dadka siyaasadda u xidhan sii daayo xisbiya fur waana maalmihii dagaalu ka socday buu ihi waqooyiga waa 89kii 90kii meelaha markii qaxoontiga aynu ku maqnayn wey ayaa halkaa xamar ku shirayeen oo si dowlad islaam ay u dhaliyaan ayay ka shirayeen odayaashaasi marka waxaa la qiimeeyey buu ihi waddada in doorashada iyo baarlamaanaadkiiyo la maro waxaa soo baxday cid wax ku gaadhay inaanay jirin oo markaas waxna aan lagu gaari karin dee haddaba maxaynu samaynaa haddaba haddii waddadaas soo xidhantay faqararnaa ana ariiqa aljihaad huwa saxiix waxaanu go'aansanay buu ihi in la jihaadaa inay tahay waddada saxda ah meelo kaloo lagu duulayaa ma jirte waa soomaalida dhexdeeda un jihaadku hadda la soco ka dhicin sheekhow
dowlado kaloo la qabsanayo lagu duulaya ma jirta waa Soomaalida dhexdeeda markii aanu go'aansanay buu yiri dagaalka arintaasina ilaa 2010kii manhajka ictisaamka oo ku qorayd buu yiri in wadada xukunka loo maray ay tahay ad-da'wa iyo al-jihad fi sabilillah المهم منهج كانوا دورنا أنا قوان سنة وكاسبوري marka dagaalkii dawladda lagu doonayay wuxuu u baahay ciidan Soomaa waxaanu bilownay marka inaanu ciidan aasaaso ayaanu bilownay isagu de askari buu ahaa mala cornel baabuha waxaan soo jeediyay buu yiri war meeshii jabhada kala dagaalamayay SNM iyo USC haday kuwaasi meesha qabsadaan de cidlaynu ku dhacaynaaye arbaalka dagaalka waa la bilaabaa oo imika baynu bilownaa dhibuudano hadda baynu bilowno si aanay saaxada inooga qabsan marka waxa la yiri buu yiri war ma rag baynu ciidan baynu tababaranayna markay dawladdu jirtay baana tababaro hoose jiray buu yiri oo waxa jira wax loo yaqaan maktabul jihad niman dagaal u diyaarsan bay ahayn maktabul jihad macnaheedu waa wasaaradii dagaalka wasaaratul harb marka hore way jirtay marka beeraha iyo guryaha iyo meelaha qarsoon bay rag ku tababaran jireen buu arintaasina waa warde muuqdo oo aan qarsoonayn inta dibad wuxuu sheegay wuxuu dhacdooyinka qaarkood qaraar kuma iman yaana dagaalka Kismaayo kala iyo dagaalo meel kale ka dhacay laakiin wax macno oo dhacda ay sameynaysaa ma jirto mar hadduu manhajku yahay iyo go'aanku in la dagaalamo xoog dawlad lagu keeno iska ilaaliya arinta noocaas ah leeyahay ku khaldi ragga difaaca waxay yiraahdaan dagaaladii dhacay looma dhamayn ragga qaar kood baa go'aanka iska gaaray wax macno taas haba yaraatay ay sameynaysaa ma jirto manhajkiinu ma aha in la dagaalamo goorta la dagaalamaya berri bay noqon kartaa saad dambe noqon kartaa saakuumay noqon kartaa sanadka dambe noqon kartaa laakiin manhajkiinu horta ma aha in la dagaalamo xasan daahir sidaas uu yiri kumareedan beenin shaykhda qaar kood oo markaa madaxda sare kamid aha oo aan weydiinay waxay yiraahdeen qaraarko qoran baa naloo keenay saasa ku qorayd in la jihaado in jamaacadu go'aansatay halka laga jihaadayana waa dadkan Soomaalida ee muslimiinta dhexdooda waxa uu yiri xiwaar kale ama dood isaga iyo culimo salafiyiin dhexmartay Sheekh Cabdullaahi Diiri Abtidoon oo dagaaladii laga dooday waxaanu marka horeba isku waafaqsaneen buu yiri go'aanka iyagu waa dawlad islaamiya dawlad al-islaam an nuqima dawlad al-islaam dawladda islaamka inaynu taagno taa waan isku waafaqnay arrintaasina waxay ka dhacday buu kulan اتفقنا أن نجاهد وأن نستعد له waxaan isku waafaqnay inaanu jihaadno jihaadkana aan u diyaar garowno anigu Sheekh Cali Warsame oo amiirkii jamaacada ahaa ayaan 1991 magaalada Berbere ku weydiiyay anigoo daayar markaan arkay muaskaraadkii la sameeyay xarumihii tababarka military oo itixaadku ay ka sameeyeen Boorame burca ka sameeyeen saasun daw raac ilaa xadka Kenya laga galiyo markii dambana Ethiopia waxaan ku uri sheekhiyaal la dagaalamaya ilaa imkaan aniga laftiisa isweydiiyaa aniga aqoontaaduna waa gaabnay da'daaduna way yaraydeen tolo bariga maxaa su'aasha ka keenay sheekhu wuxuu igu jawaabay cidna la dagaalami maayo waa la diyaar garoobaya inta aanu ka haya waa inta aanu waxba ku darayn waxna aan ka reebahay cidna la dagaalami maayo waa la diyaar garoobaya way ninka marka maanta yiraahda jamaaca dacwiya aanu nahay dawlad dooni mayno dagaal iyo waxa uma jeedno wala midkood inuu dadka been u sheegayo oo arintaasi ay siyaasad ka tahay mowqif siyaasi ay ka tahay iyo inuu isaga aragtidiisa isaga u gaarka u ka waramayo nin mashaayikhdooda kamid wuxuu isoo ka hadlaya dagaaladii Soomaaliya ka dhacay dadkii salafiyada u intisaabay saddex bay ugu qaybsameen buu qolale
وجهات صح ومعنا هلا وضع وأتقرن إنسان قلاداس وإلا يمك وضع يقول هالكودي ورد تاجن ولا وفتنه قلادنا وأتقرن إنسان يقول له وجهات لكن هذا مناسب معها واحد شيء روح له يقانو استراحة محارب نصشد الدجاليهنك دجاليهنك من مربو دجال كوير النصطع مركو أركينا أنا الدبيش وحقي سودع هاي الدبيش الجوش اسمه مقيقة هو بكوير لك تعدود دون قريه أستا الشيخ هو ينباوح ويريو رجع أساسي كمذا هذا الحركي مقشوا ولا بمتكودون قري دعية هي قري بوحة أو تيرسن ويسقون هذا الديار إن مالين وحويان للردو مرر بدن بيدا عن دجال كانوا سكديني عندنا أنت هذا بدأت بي أي دجال الدبو بلعبين والدبو حويان وقلين مرة يكون قيب سمين وجهت مرة حويان waxaa dhacday dawladii Shariif qaar wasiiray ka ahayd qaarna xisbul islaam bay ahayn oo la dagaalamayeen wala saddexaadna wasiirana kama noqon lamanay dagaalamin waa fitna waxaan socdaa bay lahayn saddexduba waa ictisaam laba tusaalaan u keenaya in mararka qaar kood dagaalyahanku dagaal ka yara nasto labadaba waxaan ka warinayaa laba nin oo ictisaam mid uu dhintay hadda Ilaahay naxariisto midna waa nooli دار ما جيس الشيء قبض وذكرنيسا حتى وسير بو كان نقول سومالي لا نينكا وسير كان نقضي وحن كوري ولا الهبلو بل أرنتي دجالة كور رميات سكديسين حقانو كده ينبي التمرون بان وينه ما أنت التمر هلا كوافو هرجيسا صار كوافو في النبي يقول نينكا لوادنا مدحتوية السومالي لان وسير صوم مري أو وسير كمدحتوية كان نقضي إلهي بس سبحانه وتعالى من خاتك حج كانوا تشوقنا اسكو قلبا نقضي هرا ويسون قان أيا يقول وحنون نقضي للطليع كاسان كول أو الشيخ سودي سك لنا مسنا إن الوافو فنا سودي جاه مسنا كاسو يقول والشيخ وحن ما تفهمينه أما لباح بالا النقضة أما هارق لباح بالا حدا أنا وكاري يروان ميلها كمرة بوري تمرك هذا دي مكمدحتويدي بقى شيء وقندة شرطي ما أنا دوحي إسكدي حجان إسكدي ده يبوري والله ما علمت أنا وهاتها لو نكوا فوفي يبوري كاربانو ستالة طليها وسيركا مدحتوي